السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز سوري هذا أصحاب تقييمها بدن كنا سوري هذا كورس كني تحنا كويك بوك يعشر كيني تطبيق بنادا وقال كان وحنكويك دونا create a sales a receipt قالك معاميش اللوجي بيو علابته إنه مقال كان مقال كي كوري كسو هذا الله قابك لو ديوان جليو لونا ما معاميشة أما إدى مركا عادي كوي حرن هذا وحنكويك دونا قابك علابته لوجي بيو معاميشة لوغان يبيو ان كاش لو ميلود واتي كرتا لا تكتير كاستمر مينيو كدنا تري انتر اسيلز ريسيبت اما اديك او جو هوم بيج كاغنا كدو فتين كرييت اسيلز ريسيبت هذا با marka aan ku dhafano create sales receipt waxaan soo bixi doontaa daaqadan halkan waxaan ka dooran doonaa customer-ka ama macmiilka aad wax ka iibinaysid magaciisa ayaad gelin doontaa وأنا عشرة هو كسر أرجني محمد آدم محمد قاب كانوا سودي وانجلني قف كان كاستمر كا هل كان حنقولين دونا الديت كا هل كان واحد قريد دون تخلق قانو السيلز نمبر الديت ماشيد بوجا كاش سيلز كا سيريال نمبر كسر كان يقولين دون هل كان حنقولين دونا ايتمز هل كان مركب حنقولين دونا تسالم حنودي وانجشنا بريس هل كان عشان طوران دونا هل كان حسوا قريد دونا كريد كا أما أماونت كا أما أنت inagu fadhiyo ama aan siinayno waan leeyahay afwan aan siinano item kan halkan waxaad gelin doontaa quantity soo kale halkan hadii aad farti gelisid waxaad ka arki doontaa inta item ee kaaga taala ashaygaas imika kan waxa inooga yaala content iyo labo item ayaa inooga yaala halkan waxaan gelin doonaa quantity inta xabaan ka iibino waxaan ka iibi doonaa 10 kiish oo bariis ayaan ka iibi doonaa $20 waa 200 iyo content soo kale waxaan ka iibin karnaa items fara badan ayaynu ka iibin karaynaa oo halkan ayaynu ku lis karayn doonaa tusaale waxaan ka iibin doonaa wax loo yaqaano miisas oo kale oo tusaale kale halkan tusaale kale chaac muujinaysa laakiin dabcan iska sample baynu gelinay markaan diiwaan gelinay ka soo waxaan ka iibin doonaa miis waxaan ka iibin doonaa isagana 5 xabo oo min $10 waa $50 totalka alaabta aan ka iibinay customer-ka loo yaqaan Maxamed Shaax waa $300 kadibna waxaan leenahay halkan waxa kaaga soo bixi doona laba daaqadood save and close in trade ama save and new means waxa weeye transaction kan ay save kare daaqad cusubna ay fur laakiin waxaan leenahay save and close hadaba maxaa dhacaya waxa inoo soo galaya cash bayna soo galay lacag ayaan soo galaysa inventory-geeni ama alaabteenina way yaraanaysaa sababtoo ah alaabtii waxbaynu ka iibinay bariiskii 52 kish banaysan 10 kish banaysan 10 kish baynu iibinay miisas baynu yaalay miisaskina 5 ayaynu iibinay waxa kale imaanaya waxa loo yaqaano profit and loss khasaare iyo faa'iido midkood ayaa imaanaya hadaba waxaan tagi doonaa report kadibna waxaan tagi doonaa company and financial kadibna waxaan leenahay a profit and loss halkan waxaan ka arki doonaa khasaaraha ama faa'iidada markaa ina soo galay halkan hadaan eegno halkan waxa ka doorantaa date-ka adarti tusaale ahaan kale waynu ka hadli doonaa insha Allah adarti saleski ama iibkii la sameeyay taariikhda aad u baahan tahay halkan ayaad gelin doontaa laga bilaabo bisha inteeda laga bilaabo ilaa halkan tusaale inagu income bayna soo galay sales waxaynu iibinay waxaan iibinay sales $300 cost of goods sold badeecadahan aynu iibinay waxaan ugu joogtay $220 wax expense ameyna gelin net income keenu ama waxa la gross profit ama net income keenu aanu ka faa'iidnay waxa $75 $300 baan iibi baan sameynay $220 baynu ku fadhiyeen $75 ayaynu ka faa'iidnay hadaba lacagtan cash-ka ee aynu alaabta ka qaybinay qofka customer-ka haddaan tagno report company financial balance sheet standard waxay ku dhici doontaa account leedo and a deposit fund deposit fund hadii aan eegno waa halkan waxa ku jira $300 insha Allah waan ka transfer garan doonaa oo akoonada aynu leenahay ayaynu gashan doonaa kadibna hadaan laba jeer riixno wuxuu automatically inoogu sheegi doonaa lacagtani meesha ay inaga soo gashay markaad u baahantahay in qof customer alaab ka iibisid waxaad tagi doontaa sidaan sheegnay halkan home page-kaaga create a sales receipt ama waxaad tagaysaa customer menu kadibna waxaad leedahay enter a sales receipt halkan waxaad gelin doontaa magaca customer-kaaga halkan waxaad gelin doontaa date-ka halkan waxaad ka dooran doontaa sales number
halkana waxaan leeyahay series book aad soo dad book isticmaasho kale iminka automatic wuxuu qaatay number 2 halkan ayaa gelin doontaa halkan waxaa gelin doontaa itemskii marka ku yaalay insha Allah casharka xigeentan kulmi doono waa aniga Injineer Ismaan Guraya oo idin leh waxaan rajaynayaa insha Allah guul iyo inaad mar walba practical ku sameysaan wixii su'aalan insha Allah idin soo wagtaan. Wassalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.